guddiga nabadgelyada gobolka Sanaag ayaa go'aano ku saabsan in aan la deegaansan karin waxay ka soo saareen dhulka xooluhu ka darmadaan ee degmada Ceerigaabo waxayna guddida nabadgelyadu ku tallaabsadeen duminta dhismayaal dad gaar ah deegaankaasi ay ka samaysteen sidoo kalena iyagoo saxaafadda kula hadlay goobta daranta ceel qoray waxay guddiga nabadgelyadu halkaasi digniino kama dambaysa uga direen dadka deegaanka ka samaysanaya dhulkaasi waxaan ugu horeyn halkaasi ka hadlay maarka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo ku-xigeenka Badhasaabka gobolka Sanaag Naaliye Axmed Jaamac halkan waxaan ku joognaa gudiga nabadgelyada gobolka oo isu dhan meeshaan joognaa wadaran gudidan waa meesha xooluhu ka darmadaan waxaanu fulinaynay waanu nimi go'aan gudiga nabadgelyadu isla gaadhay go'aanka oo ah meesha daranta la yidhaahdo inaan cidina degi karin cidina lahayn dan guudna ay tahay wixii ku jiraana inay ka baxaan wixii dhismaa oo lagu bilaabayna inaan laga baabi'iyo waxaanu codsanaynaa waa dan guud in loo hoggaansamo go'aankii baa maanta la fulinayaa waxaana la marinayaa intii alaale iyo intii daran la oran jiray waxaa la marinayaa faagga cagafta aad arkaysaan cid dambe oo yeelan doontaana ma jirto waa dan guud waa meesha xooluhu darman jireen taliyayaasha ciidamada qalabka sida ay kala duwan oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxaa hadaladoodii ka mid ahaa sidan waa halkii xooluhu ay barqarayeen marka afka galbeedka aan ku hadalno reer Ceerigaabo marka waxa la isla gartay guddi nabadgelyo ahaan inaan ceelna laga qodin gurina laga dhisin wixii dhismaha aan burburino xilqore waa garanaynaa gobolka Sanaag bay daran u tahay xawal daaqeenkeeda oo xooluhu ay ka darmanayaan cidii isku dayday inay gaar u qaadato suuroobi mayso cidii imka dhisma ka tuuray waa taasoo imka waa la dubiyay agtaan marinay dadka wax ka dhistay waxa loo leeyahay muddo gaaban guddiga nabadgelyo sheegi doonaan ha kaga guuraan cidii isku dayday inay nabadgelyo ahaan ka hor timaadana waa ku filanahay ugu dambeyntiina waxaa halkaasi hadalka isaga dambeeyay General Muuse Dalaf iyo Badhasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falaay waxa go'aan guddiga nabadgelyadu ku gaaray in daranta la badbaadiyo oo aan cidina cid ka sheegan ee dhul la wada leeyahay oo la wadaago ay noqoto waxaanu rabnaa adaan ay guddiga nabadgelyada ee heer gobol in dadka wax ka degay ama wax ka dhistay muddo 7 casho ah ay kaga guuraan wala badbaadinaya dhulka waa dhul dan guuda dhisan karta ma jirto haddii danta guud aan la wada ilaashan de waxa weeyaan danta gaarti waxba ma tarto xoolaha meel walba laga keenaa waa dawada iyo caafimaadka xoolaha aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinayaa inta maanta naga aqbashay inta kalena waa ku qasbay cid laga baryayaa ma jirto haddii ilaahay ka dhigo ciddii u hoggaansami weeye ama meerta tallaabo sharciya laga qaadi doona waa duminaynaa 7 casho ka bacdi haddii ilaahay ka dhigo maanta waxa weeye waa isniinteeda qofka loogu yimaadaa isaga mas'uulka ah waxa ka qabsada waxaana xusid mudan in guddida nabadgelyada gobolka Sanaag calaamadiyeen guud ahaan baa dhul daarameedka ka xaaraansan in dad gaar ah ay deegaansadaan waa Cabdullaahi Xuseen Darwiish magaalada Ceerigaabo